soddon qoys oo ah kuwo danyar ah kana mid ah dadkii sida xoogani u saameysay fatahaadii webiga Shabeelle ee Beledweyne ayaa maanta dhalinyarada gurmadka oo ay horkacayaan gudoomiyaha dhalinyarada Hirshabeelle Maxamed Cabdullaahi Buraale iyo gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Hiiraan Faarax Cabdi Cali waxay u qaybiyeen deeq lacageed oo ka timid muxsiniin Soomaaliyeed oo dalka Norway ku nool. Lacagta oo gaaraysay 1,500 oo doolarka Mareykanka ah ayaa qoys walba oo ka mid ah 30 qoys waxaa la guddoonsiiyay lacag dhan $50 si qoysaska ay noloshooda dhowr cisho ugu maareeyaan. Gudoomiyaha dhalinyarada dowlad goboleedka Hirshabeelle Mudane Maxamed Cabdilaahi Buraale Raaxeeye ayaa kaga mahad celiyay walaalaha lacagta soo dhiibtay ee ku nool dalka Norway iyo dhalinyarada lacagta soo aruurisay. Hoosta ayuuna ka xariiqay Mudane Raaxeeye in deeqdan ay tahay tii labaad ee dalka Norway ka soo gaarta. runtii maanta waxaan soo gaarsiinay dadkii fatahaadda ka barakacay 30 qoys waxaan siinay oo qaybna lacag $1,500 oo qofkiiba $50 u helay. runtii dadkaas waa dad mudan. lacagtaas waxaa soo dhibtay waxaa noo soo dhibay oo dad muxsiniin ka soo arooriyay walaalo oo reer Norway ah Cabdiraxmaan Yuusuf Xaaji oo Norway ku sugan iyo Cabdullaahi Cabdi Aadan oo sidoo kale Norway ku sugan iyagoo soo wakiisho oo noo soo dhibay walaalkay Deeq Ismaan Cali Karix asxaabta reer Norway dhalinyarada ah waa markii labaad aan dhigi karaa in soo gaarsiiyeen lacagahan. runtii lacagta waa $1,500 qofkiiba $50 siinay. wixii aad baxsateen ajir xasanad Allah idinka siiyo. kuleytaba qof walba asaa og maanta maalin ay ugu fiican tahay maahan inuu dadka walaalihiis muxsiniinta wax siiyo. runtii dadka markii la xulaayane waxa waaye in la hubiyo waa cidda wax la siinayo. runtii dadkan waa dad mudan, waa dadkii biyaha ay ka soo barakaceen oo haddana maaragtay xaaladooda iska adkeed. anaga lacag aan uga dhignay qofka lacagta u muhiimsan oo wuxuu rabo ka samaysan karaa. Qoysaskii ka faa'iideystay deeqdan lacageed ee ka timid muxsiniinta Soomaaliyeed ee dalka Norway ku nool ayaa u mahad celiyay walaalahooda Soomaaliyeed ee lacagta u soo dhiibtay. waxayna faahfaahin ka bixiyeen qoys walba iyo lacagta la guddoonsiiyay. Bismillahirrahmanirrahiim. walaalahii muslimiinta ee noo soo dhiibay lacag $50 ayaan haystaa. waan ku mahadsantihiin qaar Allah idin siiyo. ajar iyo xasanad la soo koobi karnaa ilaahay idinka baryaaya. walaalkay muslimiinka asaga noo qaybiyay lacagta asagana ajar xasanad Allah ka siiyo. waan ku mahadsantihiin. Maxamed Ibraahim Siyaad, telefishinka caalamiga ah ee Hiiraan Bile, Beledweyne.